الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، اللهم عاف كل مبتلى واشف كل مريض واهد كل عاسي. الحمد لله الذي وعد عباده المضيعين بالجنة وتوعد العصاة بالنار. إلهي بمهد إسكاله أدوميهيسا طاعديسا قدنايا وأطيعايا جنة أبلنقاذي كويسا عاسيا نار أبلنقاذي. ولا الذي قال أصحابتي إذا شرفت له السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوات الله والسلام عليه وحديث كليه أكثر ذكر هذه من اللذات بضيع وحسوستا ومسكح دين إيمانك إنها كجرت مر والبا يساعد والبا ذكر هذه من اللذات مع أنك لقويها ملك موتك كوضا حبيبك صلى الله عليه وسلم. walaalkayga khaaliga ah oo dhimashada waa albaab furan oo qof walba uu ka galayo ilaahay abuurta subxaanahu wa tacaala. maa min makhluuqin qof kasta oo la abuuro dhimashada albaabkeeda wuu galayaa subxaana allahi caza wajalla. kullu nafsin daa'iqatu lmowt, naf kastana meydka way dhadhaminaysaa. marka walaalkayow inaad xasuusato dhimashada ama geerida aad xasuusato waxyaalo badan oo adduunya aakhiro intifaac ku leh ayaa jira. qofka inta badan dhimashada xasuusta ilaahay subxaanahu wa tacaala macaasiyo insaannimo iyo bini aadannimo iyo gaf inuu ka dhaco waa suurtagal, laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala cisyaankiisa ma laazimo. qofka inta badan dhimashada iyo geerida xasuusan bini aadanka ma dulmiyo subxaana allahi caza wajal. wax faa'iidooyinka ay leedahay ayay ka mid tahay. aktiru dikra haadi min ladaad buu xabiibkeena leeyahay. walaalkaya waxaan rabaa inaan kuu sheega qiso yar. yacquub calayhi salaam, nabiyullaahi yacquub calayhi salaam, malakul mowd ayaa u imaan jiray oo soo booqan jiray sida caadiga ah. ambiyada way arkaan malaa'igta iyo malak mowd iyo jibriil iyo way arkaan jibraa'iil iyo way arkaan malaa'igta. ilaahay waa u sakhiray. maalin maalmaha ka mid a ayuu yacquub wuxuu ku yidhi yaa malakul mowt innii adlabu minka dalaba, aniga dalab baan kaa dalbanaya, xaajan kaa dalbanaya, arrin baan rabaa inaan ku weydiisto ee arrintaa iyadaa ii samay. malakul mowdkii wuxuu ku yidhi qaala maahi, maxay tahay waxaad iga dalbanaysa yacquubo? wuxuu yidhi idaa xadara awaanu ajali tuclinuni bidalik, haddii xilligayga lasoo gaaro, maadaama malakumood aad tahay oo aad qaabilsantahay nafta inaad dadka ka qaado, xilliga waqtigayga lasoo gaaro lasoo dhawaado ii sheeg buu yidhi subxaana allahi caza wajal. malakulmoodku wuxuu ku yidhi sa ursilu ilayka rasuulayni aw thalaatha, yacquubow intaanan ku imaaninoo nafta aanan kaa soo doonin 3 fariin ama 2 fariin ama 3 fariin baan kuu soo diri doonaa. saasay ku kala tageen. muddaa kasoo wareegtay maalinka dambu malakul mowdki yimid. yacquub calayhi salaam waa nabi ilaahay subxaanahu wa tacaala. malakul mowdkii markuu salaamay buu wuxuu ku yidhi yaa malakul mowt azaa'irun ji'ta am liqalbi ruuxii, ma waxaad iigu timid inaad isoo booqato sida caadiga ahayd oo isoo salaanto, mase maanta waxaad iga soo doonatay naftii iyo ruuxii baa iga soo doonatay subxaana allahi caza wajal. dhagayso, si fiican u dhagayso. malakul mowdkii baa wuxuu ku jawaabay qaala liqalbi ruuxig, yacquubo waxaan maanta soo doonay naftaadii buu yidhi, ruuxaagii ayaan soo doonay. subxaana allah. ambiyada waa la khiyaargelin jiray xilliga nafta laga qaadayo, sida nabigeena loo khiyaargeliyey waana loo sheegi jiray xilliga laga qaadayo subxaana allahi caza wajal. markaasuu wuxuu yidhi yaa malakul mowt amaa wacadtanii annaka satursilu ilaya rasuulayni aw thalaatha, yacquub malakul mowd oo soo ballan ima aadan qaadin buu ku yidhi inaad iisoo dirayso 2 fariin ama 3 fariin. malakul mowdki wuxuu ku yidhi yaa yacquub innii qad facaltu dalik, arrintaa iyadaa waa sameeyey buu yidhi yacquubo. 3 fariin baan kuu soo diray buu yidhi intaanan maanta nafta kaa soo doonin oo kala dadambeeyo weliba. bayaadu shacarika bacda sawaadih, tintaada wada madowga ahayd markay isu badashay caddaan fariintii ugu horrayseen kuu soo diray buu yidhi malakul mowdow. wadicfi jismika bacda quwatihi, jirkaaga awooddiisa uu xooggii u lahaa markay daciiftay downimo ee ku yarahay taabatayna fariintii labaad baan kuu soo diray oo uu ku tusinayo jirkaaga calaamad kuu sheegaya ah inuu daciifayo oo quwaddii hore uusan lahaanaynin. waa fariintii labaad in kuu soo diray buu yidhi. wanxilaa'u jismika bacda istiqaamatihi, jirkaaga iyo toosnaantaadii markaad soo gudatay oo aad soo laabatay. qofku markuu waayeeloobo si toosa inta badan inuu u istaagi karin baa laga yaabaa, hadduu itaali dheer leeyahayna kumaba sii jiraba, wuu soo godanayaa. ballanta 3aadna waxaan kuu soo diray yidhi fariinta 3aad markaa arrintaa aragtay buu yidhi bayaadu shacarika bacda sawaadih waducfi badanika bacda quwatih wanxilaa'u jismika bacda istiqaamatihi
subxaana allahi caza wajalla. walaalkayow marka qofka inuu ciraysto oo uu duqoobo waa fariin rabbi xaggiisa uga timid oo tusinaysa inuu u dhow yahay madashii meeshii loogu talagalay. markuu waayeeloobo awooddiisa yaraato waa fariin rabbi ka timid oo tusaysa inuu sii socdo. markuu soo gato taagnaan waayo ama isku soo gato waa fariin labaad saddexaad xagga rabbi ka timid. mithaalo ayaa noogu sugan qisaska ambiyada subxaana allahi caza wajalla. walaalkayga khaaliga aho anii adiga rabbi ha inaga dhigo kuwa inta badan rabbi xusa, rabbi xasuusta, oo ilaahay subxaanahu watacaalaana geeridana xasuusta si fi dunya walaakhira u iflaaxaan. waqti yar baan helay aan kugu soo diray kiliibkani, lunch break ayaan ku jiray. rabbi ha ku ciseeyo, ha ku sharfisaan kuu soo xasuustay walaalada u xasuuso. kiliibkan yarna walaalada la wadaag. akthiruu dikra haadi miladaad buu xabiibkeenni leeyahay. xasuusta oo badiya geerida xasuusteeda buu leeyahay subxaana allahi caza. macaan kala gooyaha xasuustiisa badiya buu leeyahay. qiso yaroo yacquub aan kaaga soo tabayna oon kuu sheegay. walaalkayga khaaliga aho risaaladan xabiibkeenna kaaga timid saxaabadaada iyo asxaabtaada iyo walaaladaada kala gudbin. laga yaabo mid qaafil inuu ku baraarugo, laga yaabo mid liitay inuu iimaankiisa sare ugu qaadmo, laga yaabo inay adiga adduunya aakhira ku anfacdo. allah yaxfaduk wayuxibuk. waa walaalkaaga ku jecel kuna salaamaya. dumtum fi xifdi raxmaan waliqaa luqraa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.